السلام عليكم. مدحوينها جمهورية فدرالكا الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو ayaa warqadaha aqoonsiga ka gudoomay danjiraha cusub ee jaamacadda Carabta mudane Saalax Axmed Junayd iyo danjiraha cusub ee dalka Switzerland mudane Valentine Zellweger. Madaxweynuhu waxa uu danjirayaasha cusub ee warqadaha aqoonsiga ka gudoomay la wadaagay sida ay dowladda federaalka ee Soomaaliya uga go'an tahay kor u qaadida xiriirka diblomaasiyadeed ee ku dhisan iskaashiga wax wada qabsiga iyo saaxiibnimada ee ay dowladdu la wadaagto dalalka caalamka. Danjiraha jaamacadda Carabta mudane Saalax Axmed Junayd ayaa soo gaarsiiyay madaxweynaha dhambaal uu ka waday gudoomiyaha jaamacadda Carabta mudane Axmed Abulqayd. waxaa sidoo kale uu ambassadorku uga mahadnaqay dowladda federaalka iyo shacabka Soomaaliyeed soo dhaweynta diiran ee loo sameeyay. waxa uu sidoo kale danjiruhu tilmaamay in uu dadaal ku bixin doono xoojinta taageerada iyo garab istaaga dowladda Soomaaliyeed. waxa uuna bogaadiyay horumarka wax ku oolka ah ee ay gaareen shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed. sidoo kale danjiraha cusub ee dalka Switzerland mudane Valentine ayaa madaxweynaha soo gaarsiiyay dhambaal salaan ah oo ka waday madaxweynaha dalkiisa kaasoo tilmaamaya xiriirka dhow ee shacabka Soomaaliyeed Switzerland ay la leedahay iyo xiriirka dheer ee diblomaasiyadeed ee labada dal ay wadaagaan. waad mahadsantihiin.